السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وحالي راها برنامج كينا مانتا طبعا ضد بدن بوحي مودة يا نولاشة شرمالكا لكن مانتا وحلقها الله يا نولاشة تركيا إن شاء الله وحا كلا سعون كرتين هادو تولي بيج كيغا أن لنا هاي يوتيوب كا تشيوال تي في إيو بيج كا أن كلنا هاي عدنان حرسي ويساقونا يوتيوب كا dad badan oo soo weydiistay inaan barnaamijka aan ka diyaarino Turkiya iyo nolosheeda iyo systemkeeda maanta waxa inoo jooga Axmed Shaakir oo Turkiya ku nool gacmo furan qalb furan ku soo dhawow Axmed waan dhawahay mahadsanid marka ugu horeysa waxaan doonaynaa insha Allah Axmed inaan ku weydiino dabcan adigu dadkii Soomaaliya ka yimi baa tahay oo waxa la yiraahdaa Turkiga yimi oo imika muddo waa joogtay marka bal noloshaada adiga shakhsi ahaan si dadku ku bartaan ay waxa la yiraahdaa bal ma nooga sheekeyn kartaa noloshaada wax yar alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam marka hore waan ku mahadcelinayaa mudane Cadnaan Xirsi iyo barnaamijkan aynu maanta kaga hadlayno haddii aan la idmo arrimaha Turkiga Cadnaan wax badan buu inooga sheekeeyey dhanka iyo Jarmalka marka maanta insha Allah in focuska la saaro Turkiga oo aan filayo dad badan inay danaynayaan aad bay wanaagsan tahay haddii aan ku bilaabo ama aan usoo noqdo su'aashaadii magacayga waxaa la yidhaahdaa Axmed Shaakir Cawil waxaan ku noolahay dalka Turkiga iminka dhowrkii sannadood ee u dambeeyey hore waxa aan ugu soo noolaa oo waqti badan ku soo qaatay dalal badan oo dunida ka mid ah dalalkii ugu dambeeyey waan ku noolaa Congo iyo Zambia ay ahaayeen iminkana Turkiga ayaan joogaa halkan dhab ahaan waana ka shaqeeyaa waxna waan bartaa bulshada Soomaaliyeedna waxaan isku dayaa wixii aan ku caawin karo oo ama aragtiya ama kelmadaydu ay gaari karto oo waxtarkooda ah inaan ugu soo gudbiyo baraha kala duwan ee social mediaha gaar ahaan channelka aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shaakir Tube iyo page-kayga Facebook-ga marka xaaladaydu iyo arrintaydu waa intaabaan malaynayaa haddii su'aalo kale jiraan insha Allah waad soo weydiin doontaa way mahadsanid intaas waa kaafi insha Allah su'aalahani baan u gelinaa waxa weeyaan marka ugu horeysa dabcan adigu Soomaaliya marka ka imaysay amba Congo amba adeegyada marka ka imaysay dhulalka joogtay oo Turkiya ay soo gelisay Turkiya horta dad badan baa aniga soo weydiinayoo fiisaheedu Soomaalida fiisa miyay siiyaan oo si fudud bay u siiyaan mise shuruudo adag bay ku xiraan sida marka Faransiis amba wadamadan ay imanaysid European-ka ay imanaysid marka bal arinta si loo soo gelayo Turkiga amba qofku ma tacliin buu ka imanayaa systemku sidoo yahay lagu iman karaa Turkiya walaal horta Turkigu wuxuu ka mid yahay dalalka tixgelinta weyn siiya baasaboorka Soomaaliga dalal badan oo aynu ku wada jirno jaamacadda dowladda Carabta ama jaamacadda dowladda Carabiya ma ogola baasaboor Soomaaliga laakiin Turkigu tixgelin weyn buu siiyaa fiisaha wuu siiyaa sida aan la wada soconno waxaa jirta safaarad Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho iyo qunsuliyad ku taala magaalada Hargeysa shuruudaha waqtigii hore qofku inuu fiise helo uu Turkiga ku yimaado aad bay u sahlanayd oo wax dhibaato ah qofku kama mari jirin Soomaaliduna waxa ay bilowday inay yimaadaan dalka Turkiga laga bilaabo 2011 markii uu booqashada ku tagay magaalada Muqdisho madaxweynaha iminka dalka jooga ee Rajab Tayyip Erdogan intii ka dambeysay Soomaalidu halkan u imanayeen qaababka lagu yimaado waxaa ka mid ah caafimaadka waxbarashada dalxiiska saddexdaas ugu waaweyn oo Soomaalidu inta badan ay ku yimaadaan waxaa jira xiriiro ay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga leeyihiin oo ay ku keenaan arday dhanka ama dowlad wanaaga iyo barnaamijka lagu tababaro ama ciidamo hab military ay dowladda Turkiga ugu tababarto Soomaaliya oo qaabka ku yimaada marka guud ahaan lama oran karo processka caadiga ee la maro
marka fiise turkiga lagu imanayo wuu adag yahay lama odhan karo waana fiise inta badan aad ku heli kartid si toos adigoo ula xidhiidha safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho ama qunsuliyadda uu hargeysa ku leeyahay oo aanu jirin cid ku odhan karta dalka turkiga gudihiisa ayaan fiise kaaga soo saaraya waayo turkiga gudihiisa wax fiise ayaa laga soo saaraa ma jiraan marka arrintu ma adka marka fiisaha la sheego laakiin soomaalidii oo aad moodaysid inay qaab khaldan u soconayaan dad badan inay ka tahriibayaan dalka turkiga ayaa waxa ay sababtay in la adkeeyo in dad badan reject laga siiyo oo loo diido in ay yimaadaan dalka turkiga taana waxaad moodaa inuu gar u leeyahay marka arrimahaasaa xooga adkeynaya iyo qaabka khaldan ay u soconayaan iyo laaluush dad badan oo la cararaya oo lacag badan sita oo iyaga laftoodu wixii sii xumaynaya processkii laakiin fiisaha dalka turkiga sida caadiga ah processka marka la marayo waxaa laga qaadaa $60 oo fiisaha lagu helo processka kale oo dhanna anigu tusaale ahaan markii aan imanayay waxaan u malaynayaa lacagta iga baxday oo dhan $800 ma dhammayn ilaa tigidkii aan ku imi xitaa marka lagu daro maantana waxa aan ku arkay turkiga gudihiisa dad ku yimi $6,000 $7,000 okay markaan pointka aan galno ma is leedahay markaa soomaalida laftoodu oo qayb ka mid ah soomaalida dhan oran maayo qayb ka mid ah ayaa waxay sababaysaa markay turkiga soo gasho inay ka shaqayso waxyaabo amba xeerarka turkiga jebinaya taas oo keenaysa markastaba inaa waxaa la yidhaahaa ay noqotayba dee khalaas soomaaligana uu dhib badan yahay fiisaha dadka xataa isleh matalan kaale waxbaro amba kaalay yani wax turkiga u imanaya inaa laga hor yimaadoba actually waxaan la hadlay waxaan malaya 2018 baan waxaan u tagay qolada qunsuliyadda hargeysa joogta nin dhalinyaro ah oo ka shaqeeya ayaanu is aragnay waxaan ku iri iyahow maxaad ugu adkaynaysaan dadka waayo maalinta aan u galay waan garanayaa oo nin ganacsada ah oo reer hargeysa ah iyo inankiisii oo si toosa ugu xidhan magaaladan Istanbul inta badanna qalabka decorationka guryaha iyo waxyaabaha iibiya ayaa fiisa dalbaday dabadeedna odaygiina waa la siiyey inankiina waa loo diiday odaygu wuxuu yidhi dee maxaan fiisaha inankan managerka magigii ka anigu ownerkii baan ahaa halay siiyo deedna waa loo diiday inankii baan markaa waxaan weydiiyey maxaa dadka ugu diidaysaan oo adkaynaysaan wuxuu ugu yidhi qolada turkidu waxa ay taagan yihiin dadkii soomaalida cidaanu aamino garan mayno dumar waaweyn oo 60 sannadood ka waaweyn da ahaan oo aanu siinay fiisaha oo caafimaad u socday ayaa markii ay fiisihii interview loogu dhuftay oo ay dalka galeen sharciga cusboonaysiisteenna aanu jirin sharcigooduna aan lahayn markii dambena loo ogaaday in ay xagga iyo Greega u tahriibeen marka markii dadkii waaweyn ay tahriibayaan dhalinyaradu ay tahriibayaan dadka iminka channelkayga wax iga soo weydiiya waxa jira dad badan oo weydiinaya qaabkee loo tahriibaa waana nasiib darro arrintaasi waxa ay markaa sumcaddii soomaalidana waxbay yeelaysaa waxayna keenaysaa dad badan oo caafimaad ahaan dhab ahaan ugu baahan dalkan inay u yimaadaan arday waxbarasho iyo shahaado la ictiraafsan yahay inay halkan ka helaan doonaya iyo dad badan oo dalxiis iyo u iman lahaa ama nolosha turkiga inay ku noolaadaan u iman lahaa in dadka si tacabiraya ama sida khaldan hadhow u soconaya ay ka fasahaadinayaan fiisihii ay sida fudud ku heli lahaayeen anigu waxaa la yidhaahaa beri waxaan arkay qaar dhalinyar oo waxaa la yidhaahaa iminka jarmalka qaar badan baa soo galay dadkaasi baasboorro diblomaasi bay xataa kusoo galeen turkiya oo waxaa la yidhaahaa baasboorradii markay kusoo galeen kabacdii waaba soo tahriibeen marka taa lafteeda miyaana islahayn dowladda soomaaliya lafteedu waxaa la yidhaahaa dad ka shaqeeya intay dhalinyar siiso baasboorro diblomaasiya hadhow tolo dhalinyarta diblomaasiga markay soo galaan hadhow tolina waxaa la yidhahaa soo tahriibaan miyaana dhibaato iyo taa lafteeda dowladdu aanay ka qayb gelin taa arrintaa dhabaantii waxaad moodaa iminka waqtiyadan dambe wixii 2010 ka dambeeyey dad badan marka safar loo baxayo ama wasiiro iyo wafdi baxaya ay jiraan waxba la isweydiiyaa cidii ugu dara qofkaas inuu halka ku dhuunto dalka la tagay uu ku dhuunto ama dalka jaarka uga sii gudbo
marka waxaad moodaa soomaalida xoogaa musuq maasuqu inuu noqday meherad ay caan ku yihiin ummadaha adduunkana sumcaddii ay soomaalidu ku lahaayeen inay hoos usii dhigayso waayo qofka soomaaligii hadba dhaqanka dadka kale soomaalida ay dowladdaasi aragtay unbaa lagula dhaqmi doonaa hadday yihiin dad straight ah toosan si sharciya wax walba ku doonaya si liigala u soconaya soomaalida ixtiraam iyo waxa ay mudanayaan in dunida laga soo dhoweeyo haddii la arko inay yihiin dad wadax xun iyo qaab khaldan u soconayana waxaa hubaala inay taasi sababayso soomaalidii in la naco sharciyadii in lagu adkeeyo iyo inaan ixtiraam iyo tixgelintoona la siin okay waxaan doonaysa ku weydiiyo waxaa la yidhaahaa qofku waayo turkiya uu soo galay markuu soo galay laba jid baa u bannaan amba inuu qaxootinimo hadhow yani hadduu saa tiri qaar ba inta soo galaan bay waxay doonayaan inay turka ku noolaadaan amba intay tallaabaan iyo qeyb waxaa la yidhahaa waxbarasho u timi marka anigu waxaan doonayaa marka ugu horeysa bal qeybta waxbarashada u imanaysaa safaaradda soomaalida ay joogta markuu qofku soo galo ma u sahlisaa inuu jaamacad qofku galo amba ma ku caawisaa oo ma garab istaagtaa qofka is yidhaaha matalan jaamacadda gal dhab ahaan horta qofka soomaaligii marka uu turkiga yimaado wax badan oo uu uga baahan yahay safaaradda soomaaliya magaaladan ankara ku taala oo aad u badani ma jiraan tusaale ahaan qofku laba option ama laba fursadood buu haystaa fursad ah in uu si toosa iqaamad dalka uga dalbado iqaamadda shuruudaha ku xidhan waa in guri aad kiraysatid oo gurigaasi uu magacaaga ku diiwaan gashan yahay ama dukumentiyadiisa aad magacaagu ka dhex muuqanayo labo inaad health insurance ama waxa si goortada la yidhaahdo inaad leedahay saddex in aad ballan ka qabsatid waxa la yidhahdo goji daaraysiga ama daa'irat alhijra waljawaazaat immigrationka inaad ka qabsatid ballan aad ku dalbanaysid waana in ballantaadaasi ay noqotaa bisha ugu horeysa ee aad dalka soo gashay haddii dalka aad soo gashid oo bil aad joogtid 30 maalmood ay ku dhamaadaan kadib xaq uma lihid inaad dalbatid deganaanshaha dalka turkiga waana dalka ka baxdaa fiisa labaad ku soo gashaa laakiin haddii aad bil gudaheed ku dalbatid inaad dalka deganaansho ama resident permit aad weydiisatid si toos ayaad u deganaan kartaa arrinta labaad waxa weeye qaxootigu shuruudo badan dadka kuma xidhaan dad badan oo xitaa sharciyadoodii aan sidanba ayaa qaxootiga la siiyey soomaali badan oo kasoo gudubtay xuduudda suuriya iyo turkigu leeyahay baa jirtay waqtiyadii dagaalku uu cusbaa suuriya si toosay u soo galeen marka haddii aad soo geshid inta badan waa la bixin jiray inkasta oo waqtiyadan dambe ay sidii hore aanay ahayn oo qaxootigu uu yara adkaaday markii hore waxaa gacanta ku hayn jirtay UN-ta laakiin iminka waxaa gacanta ku haysa 2 sannadood ama 3 sannadood ugu dambeeyey immigrationka turkiga ayaa gacanta ku haya marka labada arrimood weeye maxaa looga baahanayaa safaaradda soomaaliya waa haddii dukumentiyada ardayga wax ka mid ah oo u baahan in safaaradda saxeexiya ay uga baahdaan ay jiraan haddii barnaamijyadaas oo kale waa laga yaabaa in safaaradda qofku intuu dukumentiskii mariyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkigana uu sii mariyo inuu u baahdo laakiin inta badan haddii dukumentigaagu uu markii hore dukumenti saxa yahay shahaado jaamacadeed oo la ictiraafsan yahay ama shahaado dugsi sare oo dowladda soomaaliya ka soo baxday shaambadaheedii iyo dukumentiskeedina u dhammaystiran yihiin aad la timaadid waxaad xaq u leedahay si toosa inaad jaamacadda aad doontid ee dalka turkiga aad isaga diiwaangelisid una geshid okay waxaan doonayta ku weydiiya haddaba waayo jaamacadda markuu is leeyahay qofku gal jaamacaduhu ma free ba mise waa lacag ay yihiin jaamacad bilaash ahi ma jirto dalka turkiga laakiin waxaa jira barnaamij scholarship ah ama deeq waxbarasho oo ay dowladda turkigu bixiso sanadihii hore waxa ay samayn jirtay si toosa waxa ay u marin jirtay deeqda waxbarasho dowladda soomaaliya kadib waxaa iska dhacday musuq maasuq badan dad badan oo xaq u lahaa inay helaan scholarshipka oo la dhaafiyey sanadahan ugu dambeeyey dowladda turkiga waxay ka dhigtay si toos ah
qofka doonaya scholarshipku in uu website uga soo dalbado dokumentiyada loo baahan yahayna uu ku soo xereeyo waqti xadidan tusaale ahaan baajta qofka doonaya oo kale 15 January ilaa 20 February ama bisha labaad ayaa inta badan la xereeyaa sida caadiga markaa ardaygu markuu saas oo kale u soo xereeyo dokumentiyada loo baahan yahay oo dhan waxay ku xidhan tahay qolada scholarshipka maamusha in ardayda ay doonayaan iyagoo eegaya darajada ama gradeka ardaygaasi uu leeyahay si saxa inuu u soo buuxiyey formskii loogu talagalay iyo jaamacadaha uu doortay iyo magaalooyinka uu doortay waxaa jira magaalooyin jaamacaduhu iyaga scholarshipka dadka ay siinayaan ama tirada ay siinayaan soo gudbiya waxa laga yaabaa haddii aad gebigaaguba Istanbul iyo Ankara kaliya dooratid waxaa suuragal ah jaaniska aad ku soo bixi kartaa inay yar tahay laakiin magaalooyinka shishe oo aan dad badan ajnabi joogin waa laga yaabaa jaaniska aad ku helaysid inay badan tahay sidoo kale kulliyadaha waxaa jira buumin badan uu ka jiro oo qofku markiiba inuu helo ay adag tahay iyo kulliyado dad badan aanay soo dalbano hadhow inay ku qaataan ay sahlan tahay marka waxay ku xidhan tahay sida ay qoladaas u soo jawaabaan inta badan bisha 5aad bisha 6aad bay soo jawaabaan ardaygana bisha 8aad ilaa 9aad ayaa dalka Turkiga loo soo qaadaa waxay ka bixiyaan tigirka go'aan baag ayay u qabaan waxay u qabaan noloshii qofku uu meesha ku noolaan lahaa waxay siiyaan lacag yar oo fee ah yani ama salary ah oo ardayga la siiyo loogu talagalay noloshiisa inuu ku maareeyo meeshii uu degi lahaa ama boarding u degi lahaa bay u qabaan waxay u qabaan health insurance full ah oo dhammaystiran caafimaadkiisa oo dhan ayaa bilaasha marka wax badan oo adeegyo ah ardaygu scholarship ahaan marka uu ku yimaado helaa laakiin ardayga jaamacadda iska bixinaya wax kasta uu iska bixinaya qiimuhuna aad qaali uma aha tusaale ahaan jaamacadaha dowladda oo kale waxaa laga yaabaa $200 ilaa $300 sanadkii in ay tahay jaamacadaha barefadka 2,000 ilaa 3,500 iyo wixii ka badan weeye okay qofku markuu markaa iska bixinayo guriga مثلا guryaha amba waxa la yiraahdaa iyo kahrabada iyo ma Turkiya ma ku jaban yahay marka haduu siraa qofku guri karayso gurigu qaali maaha Turkiga waxa laga yaabaa guriga 3 qol iyo fadhiga horta guryaha Turkiga ka jira in ay fahmaan Soomaalidu aad baan u jeclaan lahaa oo houses maaha waa apartments waa shuqaq guriyuhu shuqadu 3 qol ama 4 qol marka ay ka kooban tahay waxa laga yaabaa in lagaaga kireeyo lacag u dhaxaysa $100 ilaa $150 gaar ahaan marka aan ka hadlayo Ankara oo kale Istanbul waxa laga yaabaa inay ka qaalisan tahay sababtoo ah waa magaalo ganacsi waa magaalo dad fara badan ay degan yihiin noloshuna dabcan standard ahaan way ka sareysaa Turkiga intiisa kale oo dhan okay waayahay waxaan imaanaa qoladan qaxootiga markuu qofku isdhiibo hadaba qofku markuu isdhiibo oo markuu imka Turkiga soo galo isdhiibo ma si fudud buu waxa la yiraahdaa ijraa'aadkiisa amba hawlihiisa loogu dhaqaaqaya qodobka labaad waxa la yiraahdaa guriga amba dawladdu yani imsay ku caawinaysaa baas leedahay yani markay qarash ay noqoto ilaa ay goormay مثلا Turkiguna baasaboorkiisa iyo hawshiisa lagu qaadan karaa su'aalaha haddii aan ka jawaabo horta sida caadiga ah diiwaangelinta dadka qaxootigu wax hadda iska furan ma aha magaalooyin gaar ah ayay ka furantay tusaale ahaan totally way ka xidhan tahay Ankara iyo Istanbul magaalooyin waaweyn oo badan oo aan laga diiwaangelin dadka qaxootigana way jiraan dadku gobollo iyo tuulooyin bay inta badan tagaan in lagu diiwaangeliyo waxay ku xidhan tahay meesha iyo sida ay dadku ugu badan yihiin qaxootiga dalbanaya iyo qolada shaqaynaysa inta loogu talagalay inay maalintii aqbalaan marka waxa laga yaabaa meelaha qaybtood inaan buuq badan jirin oo maanta marka aad u tagtid isla maanta lagu diiwaan geliyo bil gudaheedna aad ku heshid kaarkii qaxootinimada meelaha qaybtood waxa laga yaabaa in lagu qabto oo lagu yiraahdo 6 bilood kadib ayaad heli doontaa kaarka oo lagu diiwaan gelinayaa laakiin kaarka 6 bilood kadib baad heli doontaa marka waxa ku xiran tahay okay 6 bilood waa yahay مثلا ka soo qaado 6 bilood warqad aad ku sii joogtid bay dabcan ku siinayaan inta
ninkan siinayaan oo caawimista turkigu kama mid ahaa systemka qaxootiga marka la eego dowladaha lacagta badan bixiya ama qaxootigooda lacag badan la siiyo maalin dhaweyd baan arkay lacagta la siiyo qofkii qoyska qofkii ka mid ah qoysaska laba system bay inta badan wax ku siiyaan haddii uu ay joogaan dad waayeel ah oo 65 sannadood ka waaweyn familigana aanu ku jirin qof 18 jir ka weyn oo shaqayn kara haddii aanu joogin waxa laga yaabaa lacag yar oo xooga ah baa la siiyaa $25 ilaa $30 wax noocaas noqonaysa aduu $50 waxaan ka badnayn ayaa laga yaabaa qofkii in la siiyo oo $50 mar kasta ka yar طبعا sarifku isbedbedelaa dadka laakiin familiyada guud iyaga duruuftooda iyo noloshooda iyo arkaan qaxootiga iska diiwaan geliya iyana waxa laga yaabaa qofkii in $100 wax noocaas ay siiyaan bishii $150 waxaan qiyaasayaa inay noqonayso ilaa $20 oo kale meelaha qofkii inay siinayaan marka wax hadda la oran karo reerbaa ku noolaan kara ma aha waxa qaxootiga laga qaato wax qof ku noolaan karo inay support u noqoto oo ay xogaa fiyar iyo xisaab bixiyaan mooye cid ku noolaan karta lacagta inta la eeg ma jirto yani waxa waa shaqo doono shaqada waa inaad shaqo tagtaa yani marka Turkiga caadi marka midna Jarmalka oo kale ayaa dawlado badan baa jira oo qofku markuu qaxootiga ku cusub yahay مثلا إنك تشرب كوكا سنة سبوعها رئيسة ما لقوا أقل شقو وأنا السنة دي 6 بلاد عندنا الانترفيو بالجوسو جوابين وحالي راها يعني أنت مش غير كذا هذا شقي سيدنا شقي هل يرو اللي يراهو ويجوا مثلا كجيني يعني وكله يعني شقي هو صاص كا أيا لجيني أقولنا يا ماشى هالك هاي يروح شقيسو marka Turkiga qofku ma shaqaysan kara caadi hatta haduu ma yani qaxootinimada markuu sugiyo markiiba legally sida caadiga ah dalka qofka shaqaysanaya waa inuu work permit haystaa ama shahaadadii lagu shaqaynayay shahaadada lagu shaqaynayana cid walba lama siiyo shuruudo adag baa ku xidhan dadkii lacagta haystay halkan iska diiwaan geliyay deganaanshaha ayaa awoodi waayay work permitka qof qaxootiyan inaan awoodeyn taa wad ila dareemaysaa laakiin si aan sharci ahayn qofku isaga shaqaysan karaa dalka Turkiga dabagal xoogan oo la leeyahay hebel maxaad u shaqaynaysaa iyo ma jirto yani shaqo madow baa la yiraahdaa waa suuq madow shaqada qoonaya waa shaqo suuq madow ah oo qofka mesela boolisku waxba ku oranayaan mise haddii lagu dacweeyo qofkani ogolaansho la'aan buu ku shaqaynayaa dambi weeye waana lagu qabsan karaa laakiin iyagu ma ka daba shaqeeyaan badanka inta badan kama daba shaqeeyaan bini'aadanka dhulta ku degaan inta badan ma qofku wuxuu weydiinaya dalka waan deganahay qaxootina waan ku ahay lacag sii aan ku noolaado haddii waa weydiinayaan moogtahay marka wixiina lama ogola laakiin dabagal xoogan oo dhanka dawladda ah oo leeyahay maxaa u shaqaynaysaa ma jirto صح اوكي waxaan doontaa ku weydiiyay waay hadaba qaybta caafimaadka markay noqoto Turkiga dabcan dad badan baa amaano oo yiraaha waa wadan caafimaadka oo maanta magaalooyin dhan ba dhisan oo caafimaadka ah okay qofka Soomaaliga markuu yimaado mesela ka soo qaad lacag yar buu haystay markii hore qaxootinimo muu ka codsan waxna muu ka codsan maalkiisu watay lacagta mesela way ka tira badatay oo lagu caawinayay aba uu isagu watay lacagtu watay way ka dhamaatay marka ma jiraan hay'ado oo mesela lagu tilmaami kara hay'adahaasi dadka way caawiyaan oo qofka haday mesela yani way taakuleeyaan ma garatay ma jiraan maya waan baadi doonay inay jiraan systemka maya hay'ado hadda loo cararo oo la yiraahdo cid baahan baa jirta ee caawiya dalkan Turkiga kumaan arag hay'ado khayriye way leeyihiin oo inta badan masaajidada iyo madaarista iyo dhisa dadka baahan qaybo dalka dibadiisa oo kale hadda wax geeya way ku jiraan laakiin hay'ado hadda ay Soomaalidu oran karaan maanta waan baahanahay duruuf ay hayso hay'ado heblaan u cararaya dalka Turkiga kamaan arag dad badan waan weydiiyay oo cidii sheegtay ma jirto Turkiguna asal ahaan dad iscaawiya maaha
dad u samaysan inay iscaawiyaan waxaa laga yaabaa qof baad arkaysaa iyadoo -1 ama -2 ah banaanka bilaa jaakad iska meel iska fadhiyo isa u gariirayo oo hal yarana xitaa cid siinaysa aanad arkin marka dad bulsho ahaan aada isu caawiya turkidu ma aha sida soomaalidu ay maasha allah isu caawiyaan oo isugu naxariistaan oo qofka uu qofka kale ugu danqanayo waa dad qof waliba dantiisa iyo hawlihiisa uu iska wato ku mashquulsan yahay waxaan doontaa ku weydiiye haddaba jaaliyadda soomaaliya turkiya oo dadka caawisa oo waxtarta maadaama hay-adihii aad tiri hay-ado oo iminka matalan anaka jarmalka waxaa jira hay-ad la yidhaha karataas hay-ado badan baa jira oo matalan aka azuul oo dadka caawisa oo qofkii u turjumta oo qofkii gacan qabata ma garatay markuu ku cusub yahay jarmalka okay maadaama taasi aanay jirin jaaliyadaha soomaali ee turkiya joogtaa miyay jiraan dad yani jaaliyad intay samaysteen oo dadkii markuu qofku soo galo uu tegi karo oo wax ka caawin karo oo haddii lacag ka go'do oo intuu uu helayo ku caawinaysa ku taakuleynaysa miyay jirtaa insha allah markaynu 4.5 ka baxno ayaa jaaliyadu iman doonaan wallahi waxaan ku arkay waxaan kusoo noolaa meesha la yidhaahdo congo oo waa dalka DRC la yidhaahdo soomaali badan kumaanan joogin 200 oo qof baanu ku joognay kadibna waxaa la yidhi jaaliyad soomaaliyeed ayaynu u baahannahay oo dowladda iyo waxay nooga baahan tahay aan kala xidhiidhno jaaliyadii 4.5 aan ku heshin weynay reer walba waxay yidhahdeen annaga oo laandheeraa sideena loogu taliyaa tiibaa turkigana ka jirta muddo hadda 2 sannadood ka badan waxaa la hadal hayay safaaradda soomaalida waxay dhisi doontaa jaaliyad safaaradina jaaliyad ma dhisin iyaguna kumay heshiin laakiin ilaahay khayr siiyo waxaa jira group baa jira hadda telegramka ah oo dadku ka badan ay ku jiraan oo jaaliyadda Ankara la yiraahdo dhalinyaro maasha Allah muxsiniina oo si iskood ugu shaqeeya bulshada ayaa jira oo qofkii baahan qaaraanka ka soo arooriya dadka ku caawiya walaalka tusaalahaan luqadda dalka garan waayey ama duruufaha dalka ka cabanaya ama wuxuu mistake ku dhacay jiraan caawiya oo la shaqeeya qofkii dhinta aaskiisa iyo abaabulkiisa iyo barnaamijka ka qayb gala qofkii dhiig u baahan marka xoolo waxaad moodaa Soomaalidu macaawi isaga xidhan tahay laakiin jaaliyad official ahaan ay safaaradda Soomaaliya u ictiraafsan tahay dalka Turkiga kama jirto okay way safaaraddu miyaan ahayn iyadunti waajib ka saaran maadaama iyadu ay safaarad ay jirto in iyadu imka matalan imaaraadka markaan anagu joognay jaaliyad baa jirta oo Soomaali ay leedahay waliba de waxay ahayd 80-nadii iyo 90-nadii jaaliyadaha ugu xoog weyn ee adduunka ma fahamtay markii ayaamii imka sanadihii ugu dambeysay bay yara xumaatay oo waxa matarbarigi hore de course baa lagu anigu yani waxa dadka jaaliyadda Soomaalida ee imaaraadka course computer baan ka geli jiray oo lacag yar oo de raqiisa oo ay naga qaadi jireen ma garatay waxa la yiraahdaa casarkii meel aan ku sheekaysano oo aan isku tagno oo waxa la yiraahdaa aan ka caawino marka jaaliyadaha jira iska qabo maadaama safaarimka jarmalka kale safaaradda ma jiri jirin oo safaaraddu muddo dheer bay xidhnayd marka waa la oran karaa in safaarad baana berigaa jirin oo jaaliyad wanaagsan waa la samayn kari waayey laana safaaradda waa shaqada jaaliyadda waxa la yiraahdaa safaaradda inay shacabku u samayso jaaliyad ay isku soo aruuraan ay wax isku qabsadaan oo ford bay fahamka xataa iyada ka saari karta laana iyada awood u leh inay qabato ma fahamtay marka waxaa u diiday maadaama safaarad baba ku leedihiin oo safaarad wanaagsan san anagu maqlay oo waxaa la yiraahdaa inay mas'uulnimada iska saaraan inay ummadda intay iyagu 4.5 waxa lagu mashquulay intay dowladda raamay anakaaba sameynayna xaga kaalay waa ka anaka kiradii ka bixinayna laakiin macallimiintiina iyo dadkiina saxaawanaya wax isku qabanaya kaalay waxa u diiday safaaradda lafteeda dad badan oo jaaliyadaha u orda oo barnaamijkan ku dhex jira ayaan su'aasha weydiiyey dhammaantood isku hal jawaab bay siiyeen waxay siiyeen safaaradda iyada hortaagan jaaliyadda laakiin safaaradda intaan la xidhiidhay maan weydiin meedinka hortaagan maxaad se u hortaagan tihiin way fiicnaan lahayd markaa safaaradda in la weydiiyo laakiin kolley eedaynta qolyaha ka imanaysay waxay ahayd safaaraddu iyada hortaagan waan rajaynayaa in Soomaalidu si ay isugu duubnaato
si ay isu wacyigelin karto si ay wax isugu qaban karto safaaradda soomaaliyana ay ogolaato in turkiga ay jaaliyad xoogani ka dhisanto iyaguna ay ka baxaan barnaamijkan qabiilka iyo waxaan ku salaysan oo yaa wax inoo qaban kara yaa dadka isku wadi kara in arrintaa insha allahu la gaaro aad baan u weydiinayaa keliya oo ah imkaad waxa ka hadashay 4.5 okay anaku waan garnay imka مثلا imka jaaliyad oo kale waa jaaliyad shacabka isku keenayso 4.5 ay dadku ku dacwoon karaan hadday noqoto مثلا qaab siyaasadeed amba barlamaan amba waxa يعني لكن أنا وحيابها لا يابي يربطن وحا كجرا مساجدي إلهي أي حتى لو أساسها 4.5 marka taariikhda jawaab karta heerka aan gaarnay xataa diinta ilaahay ama masaajid marka la galo maadaama dadkuna dad nin fiqhi iyo cilmi ma sha Allah dheer tahay sababta keenaysa waxay tahay wadaadkii laftiisii inuu soo gaaro kale ford bay faham ku dhisnaa dabcan horta Soomaalida qabyaaladu waxaad moodaa inay xididada ka gashay waana cudur kamid ah cudurrada ay bulshadeenu leedahay in looga duceeyo laga wacyigeliyo laga hadlo aan laga daalin aad masaajidka ilaahay lagu tukanayay baa leeyahay fard way laga dhisay ducada marka ka caysa waxay tahay ilaahay inuu sahlo xaaladu waa adag tahay taa waa ka gudbayna insha Allah ma garatay waayahay qofku markuu مثلا imanka qaxootinimo isku dhiibo amba waxa la yiraahdaa jaamacad ku soo imanka qofka مثلا jaamacad markuu soo baxo oo مثلا muddo joogay 3 sano ilaa 4 sano buu joogay ma loo ogolyahay marka inuu baasaboorka مثلا amba jinsiyadda Turkiga uu qaato inaan qaxootiga kala duwan yihiin labada arrimood moogtay systemka imanka waxaan ku weydiinayaa qofka markuu jaamacad dhameeyo amba Turkiga uu ka shaqeysto muddo مثلا 4 sano baasaboorka Turkiga ma loo ogolyahay inuu qaato haddii uu shaqo legal ah oo dawladda Turkigu ay ogoshahay isna uu work permit-kii uu leeyahay cashuurtii laga jaro muddo 5 sanadood ah uu ka shaqeeyo xaq buu leeyahay inuu dalbado laakiin just arday buu ahaa xogaa shuruuda inuu ku dalbado 100% ma sahlan laakiin way ku jirtaa ardaynimada waxyaaba lagu helo way ku jirtaa laakiin way adag tahay xogaa oo cid wali ku apply garaysay oo ku heshay maan arag waan doonay laakiin shuruudaha way ku jirtaa laakiin shaqadu waa wax la hubo hadduu 5 sanadood si caadi oo legal u shaqeynayo uu leeyahay work permit-kii uu leeyahay inuu xaq uu leeyahay inuu dalbado oo uu helo okay way qofka qaxootiga isagana imka marka anigu Jarmalka joogo muddo 8 sano anigu qaxooti ah amba Yurubiyada kale amba meelaha kale amba Mareykan amba meel kasta qabatid marka muddo joogtida qaxootinimada ka baxaysid waxa ka hor مثلا 5 sano marka ku jirtid sharciga weyn lagu siinaya ma siiyaan marka dadka waxa la yiraahdaa sharciga weyn markuu Soomaalidu 10 sanadood joogtay wali lama ogola bank account inay furtaan iska daa in sharci la siiyay صح oo wali qaxootiga ku joogtay dadka Suuriya ka soo galay صح يعني ما تاكريو ما taa oo cashuur bixisaa markaas wax lagu ogoliyo saas u badan tahay amba check-kan ku ima shaqeynayso ma jirta okay way waxaan doonta ku weydiiyo Turkigu ma ku celin karaa haddii aad dalka khalad weyn ka gashid haddii tusaale ahaan hadda waxaan garanayaa niman dhalinyaro ah Soomaaliya oo lagu eedeeyay qolihii dalka inqilaabka ka sameeyay toos baa loo musaafiriyay sidoo kale haddii sharcigu intuu ka dhaco ama tusaale bil inta joogto ama fiisaha uu ka dhamaaday aanad wax kala dalban xaq waxa uu leeyahay inay ku yiraahdaan dalka nooga bax marka qof mistake sameeyay mooy qofkii wada legal maray oo wax walba si sax ah u apply gareeyay idin maciliso ciidan dalka ma saarto okay way su'aasha ku weydiinay way dad badan oo مثلا baasaboorraha si Turkiga miyay ku badan yihiin mise ku yiriin baasaboor Turkiga ba maya Soomaali baasaboor Turkiga haysata gabdho la qabo oo niman Turkiga qabaan waan arkay صح laakiin Soomaali si caadi oo official u qaadatay wali ma arag okay waxaan doonta ku weydiiyo waxaan gelinaa qaybta carruurta iyo dhamada carruurta yar okay inanka yar imanka ma artay marka مثلا xuquuq buu ku leeyahay مثلا Yurub xaq wuxuu leeyahay abiyaha hadduu مثلا hadal badan yahay aba buuq badan yahay aba familigiisu dhibaato badan ay ku hayso ka yar waxa la yiraahdaa ay kala wareegaan
lacagta la siiyo amba dowladda ay siiso haddii keer ka muuqan weyday waxaa la yidhaahaa way kaa qaadanayaan turkiya carruurta ma la iska qaadaa maya systemka afrikaanu kala midna carruurta waa dili kartaa xitaa wax dhegnageyn kartaa cid kaala hadlaysaa ma jirto yani adaa xoroo carruurtaada sidii soomaaliya loola dhaqmaa xataa hadduu masalan inanku madluum yahay la dhegeysan maayo waa laga yaabaa in booliska iyo waxa u tago laakiin oo de waa la dhegeystaa waana kiis inta badan weynaado haddii de uu dhinacan iyo markhaatigiisii iyo barnaamijka xoogaha waa laga yaaba baaritaan in laga sameeyo laakiin carruur turki dadka laga qaado systemka kama jirto sidaa adag ee reer galbeedka wax uga jiraan ugama jiraan okay waxaan doontaan haddaba barnaamijku waynu soo gabagabeynayaa ma garatay waxa weeyaan waxaa adigu markaa la talin lahayd dhalinyarta soomaali waxaa la yidhaahaa turkiya doonaya intay yimaadaan waxaan odhan lahaa soomaaliyay dalkaaga iyo dhulkaaga wax ku dhamaa ma jiraan turki wax yaala oo loogu soo cararo dhab ahaan marka la isoo weydiiyo oo aan qofka ku yidhaahdo waxuma yaalaan wuxuu is oranayaa oo adigu waad joogtaa maxaad leedahay waxuma yaalaan dhab ahaan waxuma yaalaan waxaan ku leeyahay tusaale ahaan dowladaha reer galbeedka qofka jooga wuxuu haystaa chance shaqo fiican uu ku helo wuxuu kale haystaa chance uu sharci la ictiraafsan yahay ku helo turki labadii midna kama heli kartid shaqo fiican oo dakhli fiican kaa soo gelayna kama helaysid sharci la ictiraafsan yahayna kama helaysid maxay markaa kuu taraysaa guryo qurqurux badan iyo laamiyo qurux badan iyo basas qurux badan maan raaraacayo xagganaan maray waxba kuma tarayso marka qofka waxaan odhan lahaa qofka ay jirto dan weyn oo ka dambaysa tusaale ahaan qofka waxbarasho u imanaya qofka caafimaad u imanaya waa ahlan wasahlan soo dhowaado waana fiican tahay inuu yimaado oo waxbarto oo shahaadadiisa qaato oo dalkiisa iyo dadkiisa ku anfaco laakiin qofka isaga imanaya keliya turki baa qurux badan ama turki baa la aadaa ama doonaya inuu tahriibo oo naftiisa uu khatar geliyo oo uu baddaa mariyo waxaan odhan lahaa walaalayaalow dalkeenna aynu aamino dalkeennana aynu iska joogno sumcadda dadka soomaaliyeed iyo inaan ku ciyaarin oo wax yeelin dad soomaaliyeed oo dhab ahaan u baahan turki imaanshihiisa jira ama xaalado caafimaad ha noqoto ama xaalado waxbarasho ha noqotee dadka ayaynan insha allahu ka xumayn oo dalka turkigu de haddii si khaldan soomaalidu ay u socoto oo systemkani uu sii socdo ama qaab dhaqankan xuni uu sii socdo marka dambe waxaa imanaysa in la yidhahdo fiisaha baa laga joojiyo oo soomaalida ayaan ogolaansho la siin marka si aan dhibaatadaas u dhicin waxaan odhan lahaa dhalinyarada soomaaliyeed sumcaddeenna iyo sharafteennu markasta madaxa haynoo saarnaato aynuna ilaalino bulshadeenna iyo sumcadeeda insha allah wallahi walaalo axmed ilaahay ku daa ilaahay ku xaafido aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaa la yidhahaa sida daacadnimada iyo walaaltinimada su-aalihii noogu jawaabaysay insha allahna waxaan jecelahay dadku waxaa la yidhaahaa youtube-kaaga insha allah xaggan uu ku jirayaa hoose kusoo qorqormayaan dabcan dadku way arkayaan inay kula soo xiriiraan oo waxaa la yidhaahaa qofkii wax u baahan amba wax doonayo waa ka youtube-kiisii waa ka facebook-kiisii waa ka arrimiisii oo dhan marka aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan noogu sharaxday waxaa la yidhaahaa nolosha turkiga aad baad u mahadsan tahay jazaak allah khayr